أسمالكوين أني وان كايلة قرطة ديل حق لان كيلة قميص مكديركا وما تيجا صعودكا عليه كيلة قولالين إنا وذا عضلو وقتي وذا خلنو أني إي علي أو إسفعنا Can you give me baby one chance haddii aad channel ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si uu kugu soo gaaro muuqaal walba soo geliyo maalin maalmaha ka mid ah waxaan maqlay game magaciisa loo yaqaano CS:GO anigana aad ayaan ugu helay sheekooyinkiisa markaa maqlay anigana gameamka noocaas waan xiiseeyaa waxaan go'aan ku gaaray inaan gamekaas ciyaaro gurigaan imaaday computerkayga shitay gamekaas oo download garaystay gamekan wuxuu ahaa game lagu dheelayo online waxaan raadsaday qof ii baxo xoogaa dad markaan arkay ayaa waxaa arkay qof isoo garaacayo macnaha aniga igu soo darsaday idhahay ii bax markaan ku darsaday aan cabaar dheelayna aan baashaalnay qofkii markay ciyaarta dhamaatay ayuu soo wacay wuxuu igu yiri igu soo darso waxaan rabaa inaan kula sheekaysto anigana waxba kama dhiganin hadalkiisa waan ku darsaday waan la sheekaystay magaciisa waxaa la dhihi jiray Dave anna magacayga u sheegay markaan cabaar wada hadlaynay ninkan waa isbaranay asxaab aan noqonay ilaa waxaan iskala hadlaynay meel walbo gameka dhexdiisa WhatsApp-ka Skype-ga xataa Snapchat-ka iskala hadlaynay habeenkii saqdhex markay sidaan la hadlayay ayuu wuxuu ii soo qoray bye bye aniga waan seexanayaa aniga wax kama dhigan film iska shitay cabaar fiirsaday fiidiyoogii hurdaya qabatay barti kursiga ayaan ku hurday sidaan u jiifay waxaan soo kacay abaarihii saqdhex habeenimo jikadaan tagay biyaan cabay taleefanka ayaa la ii soo wacay waxaan arkay bashqad saxadan waxay ahayd 1:00 habeenimo anigana waan yaabay kadibna waxaan duldegay folderkii waxaan arkay Dave oo ii soo diray gurigayga sawirkiisa isla waqtigaas aniga waan naxay aad ayaan u naxay wadnaha ayaa i gariiray waxaan sameeyay garan waay socodkii waan gabay maxaan sameeyaa daaqada igu soo garaacay aniga waan naxay aad ayaan sii xabsaday markaan wejigiisa arkay aad ayaan uga sii naxay waan cararay qolka ayaan kusii cararay waan xirtay suuliga haddana kusii cararay suuliga ayaan ku dhuuntay ilaa habeenkii oo dhan suuliga kamaan soo bixin sidaan u dhex fadhiyey yaa waqtigii ugu bariyey waxaan la yaabanahay ninkaan sidoo guriga ku ogaaday sidoona ugu ogaaday meeshaa joogo ninkaan hadduu i qabto maxaa ugu samey karaa wali albaabka soo gargaraacay dhulkoo gargaraacay anigana waan cabsanaa suuliga ayaan ku jiraa markii la gaaray subaxii waxaa maqlay socod waa qoortaan soo dhiibay waxaan iska hubinayay kadib waxaan arkay oo aabbahay inuu yahay anigana waan soo cararay aabba ayaa arrintan uu sheegay isna wuxuu yiri wiilkayga hawalwalay mar dambe waxaa safama kuuma dhacay aniga marka waxaan ka fikirayay ninkaas hadduu habeenkii qaban lahaa oo wax yeeli lahaa sideen noqon lahaa kadib taleefanka ayaan gudaha u galay wixii dhan ayaan baaray waa yaabay حتى بس قديه فريمي حتى وان كواي كمبيوتر كان قالي جيم كوي كوصل درسي وان كواي everything ever وانا سكون حي وان يا بي إن قفك موحوها إلا هذا المدرسة أيان إلهي ما لك أبي كدم بي قوانا أيان كخات إن أيام جيم أونلاين markaan jiray 20 sano waalidkayga ayaa waxay galeen safar yar oo magaalada ka tirsan anigana waxaan dhigtaa jaamacadana waxay u dhowdahay gurigayga agtiisa markaas waxaan ka soo baxay jaamacadii sidaan u soo socday gurigayga ayaan u soo dhawaa markaas xilligan waxay ahayd xilli kuleel badan markaan guriga imaado daaqadaha ayaan balaqi jiray sababtoo ah kuleel badan ayaa jiray habeenada ka mid ah anigoo iska jiifo oo daaqadana ii furan tahay sidaan u jiifay ayaan waxaa maqlay shanqartaas waa sida qof qoslayo oo kale anigana waan yaabay
daaqadana waa ii furnayd. waan soo kacay daaqad ayaan fiiriyay. aad ayaan u naxay markaan daaqada fiiriyay. waxaan arkay arrin aad iyo aad ugu naxo oo wadnahayga xataa banaanka keeni ratay. waxaa taagnaa gurigayga gadaashiisa naag gacmo dhaadheer dharsaa'id leh, weji naxtin leh, indha nuuc kale timaa cad. aniga aad ayaan u baqay. daaqada ayaan si degdeg ah u xiray. ayadana way qoslaysay. waan la yaabay sababta ay qoslaysay. anigana daaqada ayaan xiray. daaqada geeskeeda ayaan fadhiyaa. aad ayaan u cabsanayaa. daqiiqada kadib qofkii ayaan dareemay inuu dhaqaaqay. anigana waan yaabay. waxaan isdhahay qofkan intuu dhaqaaqay. naag cabsi la ayay ahayd. kadibna waxaa la soo gargaraacay albaabka si xoog leh. aniga waa naxay sababtoo albaabka ma uusan ii loo garaysnayn. anigana waa ogaa qofkan albaabka ayuu isku dayay inuu soo furo. anigoo naxsan waan soo cararay. sidaan u soo cararayay waxaan imaaday dhankii albaabka. waxaan qabtay albaabka. waxaan isku dayay inaan loo gareeyo. waan loo gareeyay. kadibna waxaan fiiriyey albaabka meeshii dadka laga fiiriyo oo dhalada ah. isha ayaan saaray. markii ugu horeysay qof ma aan arkin. waan yaabanahay qofka albaabka soo gargaraacayay yuu ahaa. waan isku naxay. markii dambe waxaan arkay sawir gurigeena yaalay. markaasaan waxaan arkay naagtan dhararka badan hooyadii aabahayga inay is aqoon jireen. waxaan kaloo maqlay 50 sano in qoftan ay awal la waysanaa. haddana ma aqaan sababta anigu u soo laabatay. qisadan waa qiso aad iyo aad u naxti badan oo igu dhacday markaan jiray 20 sano ka hor. anigoo ku jiro liftigeyga shaqo ee habeennimo. habeenada ka mid ah anigoo siftigeyga ku jiro ayaa waqtigayga ku dhammaaday. shaqo adagna waan hayay. markaasi waxaan eegay in dadkii joogaan. waxaan arkay inuu cidna joogin. waqtigana ugu dhacay dadkana ay kala tegeen. anigoo waxay kadib waxaa ii imaaday nin oo weji cabsi leh. wuxuuna i dhahay waxaan rabaa dhar inaad ii gudbiso. markaasaan waxaa ku dhahay saaxiib waan ka xumahay. meeshii waa lala xiray. waqtigana ugu dhammaaday. saacan oo dhar ma heli kartid. markaas ayuu igu dhahay goormaa meeshii la xirayaa ma ii sheegi kartaa. waxaana ku yidhi haa 5:15 ayaan xirayaa habeennimo. kadib waxaan bilaabay inaan meesha iska xaaqo. waxaan soo qaaday qashinkii aan soo xaaqay. waxaana imaaday fuusada qashinka agteeda. kadibna fuusada qashinka agteeda waxaan ku arkay hoos u eg inuu aniga isoo fiirinayo kale. aniga waa naxay. wadnaha ayaa gariiray. kadib qashinka ayaan soo tuuray. waxaana ku soo laabtay shaqadeyda albaabkadii iyo anoo xiray. waxaan iska eegaa in liisoo socday in kale. shaqadeeda ayaan sii watay anigoo sii ilaalinaya. daqiiqada kabacdi waxaan maqlay garaacitaan liigu soo garaacay daaqada. anigana waa naxay. daaqadaan fiiri waxaan arkay weji qofku wuxuunu egaa qofka daa yimaadoo kale. wuxuuna kugu dhawaaqaya magacayga asigoo leh waan ku dilayaa. igama badbaadaysid maanta waad dhimanaysaa. aniga waan xabsaday. waan naxay. waan oroday. waxaan wacay booskeyga. waxaan u sheegay wax walba meeshaga dhacayo. asigana wuxuu ii soo diray boolis. alxamdulilah waana badbaadiyay haweenkaas. mar walbana waxaan ka fikiraa hadduu ninkaas ku qaban lahaa siduu ku yeeli lahaa. walaal muuqaalka diyaad ka heshay fadlan subscribe saar. asabalkweyn ani waan kayle qortada dheer xagga laankeele khamisma ka jirka qumatiga socodka qaliyey keele olaliin ina wada hadalno waqti wada qadano ani iyo cali oo isfacno kanigimi baby one chance. haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geli.